هذه راح يكون صح هدين نروش أنا حدود لهين yes iyo waxyaabaha aan la xaraantimeeyay waa maxay shayga ugu horeeyay sameeyay lahayd billboard oo magaciisa saddexan la yiraahdo ayaan la Umar Cali aniga magaciisa saddexan saar ma taqaana مولد حسن اسماعيل اسماعيل عصام hadii aad ahaan dareemay ilahay dadka ku abuuro keebad jeclaan lahayd inaad noqotid barashadaada wato ku daal kadibna waxaan filayaa waa odhahdii igu qiimaha badneed ee tiraahdo maalintaada maxaa samaysaa soo dhawaad saaxiibayaal waa Mawlid Sam iyo muuqaal kale cusub iyo waliba barnaamijkeeda aad xiisayn jirteen ee Sam Talks iyo saaxiibaday halkan waxa fadhida Nasriin ama Sabriin ama Nasriin kalgacal kul waxa u taqaana Sabriin iyo billboard oo magaciisa saddexan la yiraahdo ayaan la Umar Cali aniga magaciisa saddexan saar ma taqaana مولد حسن اسماعيل اسماعيل عصام marka saaxiibayaal anigu barnaamijkan sida taqaaneen barnaamijkan waxaan ugu mar walba ku lahaan jiray laba su'aalood ama saddex su'aalood sida taqaaneen saaxiibayaal barnaamijkan su'aalahan waa su'aalo updated ah waxaan ka soo dhigay 2025 su'aalihii barnaamijyada hore isku siman jiray waxaan jireen su'aalo 24 ah imikana su'aalahan waa su'aalihii hore ka duwan ka xamaasad badan ka feelings duwan marka caawa anigu waxaan ku yeelan doonaa barnaamijkan only saddex su'aalood waxa markaa soo dhaweynaya ugu horeyn ayaan le su'aasha ugu horeysa maxay kordhanaysaa ها والله yes ما لي سورن كلا waxaa tahay qof aan isdhimin imsa waxay wadaan isku dhibin nolosha aan isku dhibade wax kasta waa go with the flow say noqdaan uma la sameeyaan soo taleerada wax kasta oo waqti badan la geliyo ayaa fiicnaada altaan baa amisanay yeah marka la eegayo xirfadeena kale waqti badan mad galseen aad barato marka ma loo soo laakiin way fududahna inaad I don't know yeah wallahi si un bay natural un bay yeah way nasiin aan ku door anigu may barnaamijka markii ugu horeysay ka qayb ahaato horta walaal su'aalo saan oo kale la isku weydiinayo waxa ay markaan dadka meelaha isku nimaadno baan is weydiinayo qof walba wax ku soo dhacaa laakiin intaan soo fariistay YouTube su'aalahan oo kale ma sameeyay marka runtii aniga hal shay oo sameysay yaraantaadii ilaa imkana ay adagtay inaad rimidid yaraantii bal muxuu gala doono waxaan sameyn jiray markii aan yaraa horta aad baan caato ahaa markuu roobku soo da'ana inaan ku dhex yaaro iska midin jirin waxaan ku meelin jirin jaroorka والله مركان مرك روب سودي إلا إمك وحنس أنا وين بس كقبتها إن نستعجو ماشي مشرارك ما بقى إلا يمكن حسوس تاس إلا هذا مش على هذه كانت سيدي دوسة بس دي لكن هاي مقولي ولا مو بدي مرك قف يروينا هذا لكن حسكي لا لي عمل حنكو كشان مرك كم فكرة شنو حصله وأنا حنوسون شري أفتح عشاء كده مثلا وكم قفت على هدي بنا دولة كورنتيد دي كل وصي كرنسا يا ميسي وما حي هالشيء ونفط هذا كأمانته يعني والله نفط هذا حن كأمانة إن أنا نسكو كرسوني واحد كرسونا نصمينه هذا أركي إنه واحد قبض صمينه قف كلا أركيا حافظ أركس لكن أنا يوم مركي واحد يجي صوب قاضو بقول كده بقول بنقول دقيقة هذا عندنا جديد أنا عندنا نفترض معنا كلسوني دي مركي واحد كرسون صمية أما واحد كرسون حتى تذكر مركي قارة دي سنة قلت فوق أركان أنا كرسونة دوش كده هذه ما شاء الله okay next one maalintaada maxaa samaysaa alla dadka maxay jeclaan inay ogaadaan bilbil muxuu sameeyay maalintii horta waxaan kalendarkan eega horta habeenkiitaan sii saaxaman kalendarkayga waxay igu qoran haddana waxba igu qornayn si maanta oo kale qortan doona soo toosaa anna waxaan isku daya wax cusub inaan barto everyday markaana wax samaynayn maanta haddana wax kalendarkii qornayn waxaan isku daya wax cusub inaan barto ama kamardeeda ha noqoto ama xirfadeeda ha noqoto ama af cusub ha noqoto ama new ideas ha noqoto at least waxaan shalay aqoon inaan barto maalin kaste aan isku dayaa su'aasha waxay koonaysaa waxa fursad lagu siiyay qof aad jeclayd
oo geeridii kala geysay jeclaan lahaydna inaad dib ula kulanto aan runtii waxaan jeclaan lahaa inaan dib ula kulmo aniga walaashay oo iga weyn oo ma aragtay ilaahay u naxariistee ahayd gabadha kaliya ee aan walaalaha ahayn waxaanay geeriyotay 2015 markaa ahaan way iga weyneyd kolley waxay ahayd yacni marka laga imaado dadka waxii dhiga ee macallimiinta ah macallinkayga caadiga nolosha ayay ahayd anigoo yaroo iskuulka dhigta oo yacni dee luuqadda iyo waxyaabahan la baro ayay waxay bari jirtay computer kasta loo isticmaalo marka anigoo iskuulka grade 7 ah ay waxaan aqaanay sida computerka wax loogu qoro maafiska bahalka la odhan jiray ani sida loo isticmaalo markan secondaryga soo gaadheen already waxaan ahaan jiray iskuulkayga oo dhan ana laptop ka haysan jiray markaasaa maamulahayga wuxuu odhan jiray galaaska anigu aan ku jiro maadaama laptop haysto wuxuu odhan jiray intuu maamuluhu soo galo memolid markaasuu odhan jiray berigaana wararka adduunka aad loo dhegeysan jiray markaasuu marti soo laptop ma sidhaa kaale laptop internetka ku xidhsan internetka kaale wararka adduunka eeg kadibna wararkii baan intaan fadhiistoon maaragtay wax eego ayuu soo geli jiray ka waran wararkii caalamka saan odhan jiray waxaana dhacay halkan laga qabsaday qoladan halkan waxaan gala ciraaq baa sana ku dhacday waxaad moodayday inaan si wariye ahaa BBC wallaahi BBC iskuulka ciraaq waxaa ka dhacay waxyaabaha wallaahi marka runtii waan ducaynaya ilaahay qabriga u nuuriyo waxaan aniga hortay farxad ah maaragtay aniga berigii hore aan yaraa hankayga ugu weyn wuxuu ahaan jiray inaan darawal noqdo waayo markaan yaraa waxaan wadan jiray gawaadhada yara daasadolaha la odhan jiray oo la sameeyo markii aan soo yari weynaaday xaafadaydan ayaan ku odhan jiray baaskilad baan ku khasbay in la iibiyo markii aan sii weynaadayna waxa focuskaygu ahaan jiray in baabuur la iibiyo oon ku shaqaysto kadibna maalmaha kamid waxay ku tiri walaashay waa maxay sababta ugu weyn ee aad u jeceshahay inaad baabuur waxaan ku shaqaysto oon raggaal qeyrkeed mustaqbal ku yeesho waxay ku tiri weligeed yaa lahayd qof darawal ihi nolosha meel kamu gaadhin haddaad doonaysa inaad mustaqbalkaaga iyo futurkaaga ku hagaago waxbarashadaadaad wato ku daal kadibna waxaan filayaa waa odhaahdii igu qiimaha badnayd ee tiraahdo aqoontii waqtigaa ay sheegaysayna macnaha ilaahayd dee mar dambe baan ogaaday waayahay waa su-aashaadi saddexaad haddii aad ahaan lahayd dareemo ilaahay dadka ku abuuro keebaad jeclaan lahayd inaad noqotid ani waxaan noqon lahaa laaf jacayl haa maxaad ku dooratay soo dadku lugaysid ilgooya laga aaminsan maalin walba qofkaa doontaad ku dhicilay may anigu waxaan kaa ku doortay markaan dareemayo jacayl wallaahi markaan waxaan soo leeyahay noloshu waa markii wax kastaaba ay ismut yihiin aan habi dareemayo faraxsanahay marka anigu dareenkaas haddii xataa lagu dhahdo keebad noqon leh because dareenka wax walbaa soo hoos gala quruxda farxadda shaxshaxda actifka marka hadda anigu jacaylkaa laygu gadan leh idinkuna lugooyadan deega daaweyda sida su-aashan waxay u baahan tahay ayaan la u sheego oon u fahansiiyo markaasunbu waad maayo qoraal ahaan bay dheer tahay maadaama say u leeyahay su-aashan waxay ka odhansaa haddii nolosha aanay xuduud lahayn yes iyo waxyaabaha aan la xaaraantimeeyey waa maxay shayga ugu horreeya samayn lahayd aad samayn lahayd oo reer wax xuduud ma leh wax la xaaraantimeeyey ma jirto waxyaabaha imika la oranaya waxaas ka daa waxaas waa din soo ma anu horta qof iska qalbi wanaagsan baan hayo soo wax balwad kuma fogaan lahayn I think waxaan samaysan lahaa mataqaanaa gibigeyga tattoo samaysan lahaa from xaggan ilaa iyo iminka dhabarka soo kama jabin dhabarka saasa loo qalay soo maha xaggaasaan ku qoran lahaa date waaliya datekii maalintii ku dhaco kale iyo ku qorlay ha ma xasuusataa ha waxay ahayd 16 October saacadan 1:01:44 inagoo barnaamijkeenu saa yahay hadalkaa oo ayaan la sheegay waxaan doonayaa hal su-aal weydiiyo su-aashaas waxaa jirta marka dhalinyaro leeyahay caqabadaas ka jira adduunka ama qofka la soo dirsaa ama wax ku dhaca ama uu xanuusto waxaa jirta adiguna waqtigaas yaad shirka gashay dad badan asxaabtaada kuu dhowaa
dad badan oo ku xiisayn jiray dad badan oo jeclaan jiray inay wax wada sameysaan kumuu ahaa saaxiibkaagii ugu horreeyey ee markii adigu cad yacni mental ahaan kala garashadaadu soo noqotay ama lagu sheegay ama lagugu yiri hebel baa kula joogi jiray ama aan kaa ag dhamaan jirin waqtiga intaad xanuunsanaysa waa kuma Ismaaciil yeah Ismaaciil dana Ismaaciil actually yeah صح halkan fariintooda marna أنا حتى دكتور كبير تلفون كسوعي أنا لما كنت حسستي أنا ما قرني بلا تلفون وأنا تلفون كي شوكو كي هو ينك قادر من مالين I think so فريد Ismaaciil درت كم حي waxaan ku yiri de saaxiib Mareykanka gashay de oo ka daba imanayna fajaclaan lahayd inaad hadda wacdo waxaan hadda wici lahaa hooyadii macaan wow وهس الله حق عودك فنانيو أنا iga furta adigu ka waran hees ka may ilaha cudum biyo asdiisin laha ana duubay ana hees ay garanay الله محمد okay next sorry okay anigu su'aashii labaad ay noqonaysaa laakiin kan su'aashaas ana mid ku haya aday bedelaya caawa Billboard Talks okay markaad weynaatay ma jira wax markaad yaray lagu diidanaa ama hadwa waxaan ka leeyahay cunto iyo waxaan ka leeyahay markaad yartahay waxa la jecel yahay wax ma la jecel soo ma yes waxaana wiigi hal mar in lagu siiyo ama bishii inaad hesho markaad weynaatay maxaad maalmo teekinta suuq iska tagto wixii tan dhinta soo ibsatay maxaad ka ciil markaad weynaatay wixii waad soo iibsan kartaa yes saa doontaad cuni kartaa ciil baxday horta berigii la yaraa waxaa jiray dadkii horta garanay way yaqaaneen waxa aad loo jeclaa bahasha qasaacda la yiraahdo qasaacda lagu diro sidii cuntada ayaa aad dadku jeclaan jiray soo day ku tigid moosa marka waxay ahayd waxa kaliya ee cuntada marka lagu soo daro deemka waliba official baa laga dhigo bacba lagu sameeyay beriga qasaacda yar bacba lagu soo xiri jiray suuqa wala ilaalin jiray daasad suuqa lagu hayo waa laga soo xidhay marka maalin walba marka la soo qaado meel si aan u xado iyo qorshe aan u xadiyo brand aan u xado ma waay jirin waan xadi jiray waan cuni jiray idan taqada noo kala saa markii saakajada uga baxdo intaan galay la qaay ay maalin walba hooyadii waxa lagu oran jiray qasaacdi inaan kan yar bad ka qabataan kadibna maalmaha kamid waxa lagu yiri sidoo qasaacdi u daayo waxa la siiyay leeyahay si qasaacdi u daayo ha ka qaraarada marka qof waxa la siin jiray daasadan oo qasaacaba kadibna ma dhacday hooyada ay keentay daasadan si aan qasaacdi u daayo gidiga maalinta aan cunay markaasa ma dhanaan yar aad macaan bay hedaa ana xataa waan cunid markaasa la igu yiri ka waran qasaacdi say ku timi markaasaan ku wallahi waan ka dhargay dib u cuni maayo ma ka qaraartay san halkaas ay xanuun sababsan cunay iga daay maalin dambe qasaac xafadiga qaadan maayo subaxii dambe isla tiiban qaatay su'aashan waxa koodhanaysaa qof da ahaan adiga ka yar hal talo waad siin lahayd kan okay qof aniga daayaron talo siin lahaa waxaan ku oran lahaa wayba maskaxdaada ayaad adigu iska dhaadhicisid inaad samayn kartid ku dhaqaaq dadka kale waxa ku oranayaan waad waalan tahay waxba kaa siiya ama school dhigaa lagu oranaya ama whatever ha dhegeysan taadan ku toos waxaad jeceshahay yeah noloshaada haddii 10 sano dib noo celin lahaa maxaad samayn lahayd wala waxaan samayn lahaa teelaak imika anagu waxaan samaynaa jidkii waalidku uu noo dhigay uma raacnaa sama dariiqadii school soo bilow high school jam saasoo maaha waxaasoo dhan ma soo mareen aniga wax iga dhex guuxay maskaxdayda baan samayn lahaa haddana meeshii waxaan haddaanan halkan doonaya aanan taagnaadeen meel u dhow baan taagnaan lahaa yacni waqtiga mu qasaareen waxaan sameeyay because 12 sano wadada anagu waxba ka fahamsanay baan iska raacay adiguna ayaan loo ma jirta horta shaqo aad qabatay adoon lacag ka doonaynin wax kale ka doonaynin just waxaas uu ka yahay waxa jeclayd waa kamardeeda kuma tirigan inaan lacag ka sameeyo iyo career inay noqoto iyo magac inaan yeesho iyo waxaas hawlo kuma jirin marka dhalinyarta waxaan ku lahaa whatever interestigaaga the dream
kaaga waxaad enjoy garaysid shaqo kuma noqonayso anu 10 hours baan dul fadhiga computer edit ama dibadda intaasoo cisho isku xiga ayaan shoot karin karaa wax kan ma dareemayna shaqo tahay oday yar baan arkay mar London oo joogo odaygu dee wuxuu ahaa oo timii bacda kamardi waxaa ku sitay oo Leica waa classic ana qaali markaasaan kulma cameraman batay photographer batay how we did markaasaan ku yidhi okay nice waxay sheekable wuxuu leeyahay adigu wada dhanta wiilka sawirkii imika helaysaa waa digital anigu waxaan haystay wiil roll yar oo 30 sawir ku jiraan oo hadhow sawirkii markaa qaadid waanaad soo sifaysaa waanaad biyo dhex gelisaa light maxaa la qol yar baa jira oo lagu sameeyay waxa oo la sameyn jiray markaas aad eegaysaa qalalayaan sawiranta wixii wuxuu anigu waxaan soo samar marka waxaan qof kastaba passion ka garaa lacag waxa soo iskiimanaysa laakiin haddaad lacag raadinaysid ama dad magac raadinaysid weligaa ma yeelanaysid way kaasi fogaanaysaa laakiin waxaad jeceshahay toos si daacad u raacdid dee shaqadaada waxaad ka dhigaysaa always 10 time aad ka dhigaysaa waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan rabaa su-aashan Mawlid inaan anigu u dooro maanta dhan bay isku qabtaan wixii dardooreen hay Mawlid ma jirtaa saaxiibad fariin u dir lahayd waxaan u dirayaa halkan fariin uga dirayaa haddii ay jirto fariinaan qofaan saaxiibna u dirayo halkan waxaan fariin uga dirayaa saaxiibkay Qays ama magaciisa caadiga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabduuli waxaan leeyahay saaxiibeen waxa jirtay waqtiyo badan oo ma taqaanaa isla soo qaadanay waayaha adduunkana waxa dadka waa ma taqaanaa waa kala kaxeeyaa wax badan oo ma taqaanaa aniga maskaxdayda ku jiray ayaad mar walba igu oranaysa samee waxaad ahayd qofkii igu horeeyay ma taqaanaa inaan social media san u soo galo waxyaabahan aan sameeyo igu dhiirigelin jiray waxaad ahayd qof ma taqaanaa wanaagsan oo ma aragtay jecel waxa uu isagu yahay in uu saaxiibkii noqdo waxaad sabab ahayd ma aragtay in dhalinyarada maanta de aniga social media ay ku xidhan ay yaqaan inaan qofka marada sida waxa inta ka yaqaana ama waxa sameeyay in ay yaqaanaan qofkii sababta u ahaabad ahayd oo adiga ahaan jiray qofkan mar walba iyo xilli walba iyo wax walba la sameeyo marka waan kaaga mahad celinayaa saaxiib waanad mahadsan tahay de sida maanta anigu ma taqaanaa de abaalka adigu leedahay sheegayo insha Allah inta noolahayna wanu sheegi doonaa insha Allah